السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسودو هذا channelka Lul's Kitchen إن شاء الله waxaan rabay maanta walaalihiina Soomaaliyeed in aan ka caawiyo waxa soo dhow shahrul mubaarak shahru ramadaan in sha Allah bishii ramadaan ayaa soo dhow bil khayr qabta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo dhammaystiro bisha ramadaan una gaarsiiyo caafimaad iyo cimri dherer nagu gaarsiiyo ilaahay kuwii dhammaystira naga yeelo dhammaanteenba ayaan ilaahay inooga rajeynayaan bilaahay inoo weydiinaya insha allah maanta waxaan rabay in aan ka hadlo insha allah sidii aan maadaama rabadaan tahay sidaan caloosheena uga saari lahayn sida aan caloosheena u jilcin lahayn ee waxa weeyaan aan si fiican saxaradoo kale inooga iman lahayd inaan caloosheena nadiif ka dhigno bisha rabadaan horteed insha allah waxa weeyaan haddii calooshaadu nadiif ahayn waxa weeyaan dhibaatooyin baa kaaga iman kara bisha rabadaan oo kugu adkaan kartaa inaad soontidba insha allah inkastuu rabadaan ku dawa yahay oo waxa weeyaan caafimaad laga qaado laakiin waxaa muhiima caloosha in la dhaqaajiyo ee kugu dhaqaaqda caloosha insha allah marka halkan waxaa ii yaala tiin iyo zaytuun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس أيوك شيكي تينك يا زيتون كبا والتين وزيتون ودور سيناء ودور سينين وهذا البلد الأمين دور سيناء يا بلد الأمين وحويان والتين وزيتون وكان دركسين تينكي ما شاء الله وكاسي isagoo fresh weeyaan waa fresh weeyaan wala soo engejiyay laakiin waa fresh maasha allah caafimaad buu yahay caloosha uu nadiifinayaa waxa weeyaan caloosha ku dhaqaajinayaa ha laga faa'iideysto zaytuunkana rasuulku waa amaanay calayhi salaatu wasalaam cunto kaste waa ku cuni jiray waxyaalaha ugu wanaagsan uu cuni jiray ayay ku jiraan markaste cuntada markuu cunayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam carabtuna aad ayuu isticmaalaan markaste qureeca kama waa maqnaadaba zaytuunku tiinkana ilaahi subxaanahu wa tacaala watiini wazaytuun waduuri siniin wahada albalad alamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan maadaama qur-aanka ku sheegay waxa weeyaan hada albalad alamiin waxa weeyaan maka amba madiina waxa weeyaan balad amiin ayuu ilaahay ku sheegay xashka weeyaan dhagaxa madow halkuu ku yaalo waa balad aamin ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leh marka waxaan rabaa inaan gudagalo oon ka sheekeeyo tiinka wuxuu faa'iido u leeyahay caloosha inuu dhaqaajisid oo calooshaada dhaqaajiyo isagiyo zaytuunka waad arki doontiin sida aan u samaysan doono insha allah waxa aan ku darsan doonaa oon samayn doonaa zaytuun ayaan ku darsan doonaa waanad arki doontiin insha allah sida aan u isticmaali doono haddii ilaaha idhaado halkan waxaa ii yaala chai seed faa'iido badan ayuu leeyahay caloosha isaguna yogurt baad ku cuni kartaa yogurtka sidiisana bakteeriyada ayuu dilaa caloosha bakteeriyada ku jirta ayuu dilaa yogurtka baleenka maalin hore waan ka hadlay yogurtka hala cuno waxay bakteeriyada haddii caloosha ku dhalato xanuunada waxaa keena bakteeriya caloosha ku dhalata amba jaraasiim caloosha ku dhasha oonbaa bakteeriyada keenta marka insha allah bakteeriyada ayuu dilaa yogurtku waad ku darsan kartaa waa chai seed weeyaan chai seedku faa'iido badan bule caloosha uu dhaqaajiya isaguna insha allah hala isticmaalo intaa rabadaanka horteed insha allah inkastoo wiiga dambe yahay rabadaankii laakiin intaanad markaad iska afturtid waad cabi kartaa waad cuni kartaa chai seed iyo yogurt waad cuni kartaa iyo zaytuunka iyo maxaa la dhahaa tiinkana waad cuni kartaa dhibaato male afturka ka bacdi waad cuni kartaa si calooshooda u dhaqaaqdo amba suxuurtaad cuni kartaa zaytuunku waa aad buu important yahay waad ku suxuuran kartaa waad ku maxaa la dhahdaa cashayn kartaa marka insha allah waa inuu qofka biniaadankii calooshiisa ka shaqeeyaa oo waxa weeyaan oo calooshiisa dhaqaajiyaa markaste kolley chai seed wakaasi chai seed wakaasi
insha allah waxaa lagu darsan karaa khudrad baad ku darsan kartaa strawberry waxaad ku cuni kartaa banaanaad ku cuni kartaa أي شيء waad ku cuni kartaa oo maxaa la yiraahdaa in aad yogurt aad dadud yogurt iyo khudrad baad ku darsan kartaa chai seedkaas kaga laaqi kartaa si kasta ayaad u cuni kartaa banaanaad ku darsan kartaa cambaad ku darsan kartaa maasha allah khudradda nooc kasta waad ku darsan kartaa chai seed iyo yogurt ayaa isku cunaysaa bacteria kaa kaxaynaya yogurtku chai seedkuna calooshu dhaqaajinaya tiinka iyo zaytuunkuna calooshay dhaqaajiyaan marka insha allah ha lagu soo dhawaado waxaan rabaa sidii aan u isticmaalna inaan ka sheekeeyo halkan waxaa kaloo ii yaala teem amba zactar baa ii yaala zactarku aad buu important u yahay zactarku wuxuu yahay caloosha wuxuu ka safaynayaa subaga joojinaya ayuu ka safaynayaa subagu waxa weeyaan wuxuu joojinayaa saxarada ayuu istaajiyaa haddii maad aragtay calooshu waxa weeyaan uu ku dubirinay ay ku dubirsan tahay khaasatan dubirada dad baa caanaha ayaa laga qaadaa haddii caloosha ku dubirto caanaha ayaa laga qaadaa waxaa laga yaabaa caano inayn adiga qofka u fiicnayn uu iska dayn karaa caanaha oo wuxuu bedelan karaa caanaha looska leh caanaha looska laga sameeyo aad buu fiican yahay caafimaad ahaana jirka ayuu fiican yahay marka zactarka subag ayuu caloosha ka kilin gareeyaa subaga haddii ay mindhaqira istaagaan oo waxa weeyaan saxaradu kaa iman weydo waxa weeyaan in zactarku uu kaa kilin gareynayaa midda kaleete caloosha uu yareeyaa zactarku haddaad cabtid subax walba haddaad cabtid calooshaada way yaraanaysaa waanu ku dhuubnaynayaa waa haddii aad aada u buuran tahay laakiin ayaan dhaaf baad u cabbi kartaa haddii aad tahay qof iska dhuuban amba wiigii mar baad iska cabbi kartaa zactarku wiigii mar ayaad iska cabbi kartaa oo waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa maadaama caloosha subagga ka kaxaynayo qofku madhiqiraha ayuu safaynayaa qooloonka ayaa carabiga la yidhahdaa madhiqirahaasuu safaynayaa markaa waa maxay aad buu qofku calooshiisa u yaraanaysaa marka hala isticmaalo anigu waan isticmaalaa seemka aad baan zactarka u isticmaalaa dad badan oo isticmaalina caloosha way ku yaraatay aad baan idigu boorinayaa haddii caloosha maad aragtay aad doonaysa inaad yaraysid midhaqirahana uu safaynayaa oo subagu ka safaynaya wuuna yaraynayaa caloosha waanad ku dhuubnaanaysaa laakiin haddii aanad rabin inaad ku dhuubnaatid wiigii mar ayaad iska cabbi kartaa insha allah intan kale ayaad isticmaalaysaa waxaweyaan chai seedkaad isticmaali kartaa waxaad isticmaali kartaa tiinkaad isticmaali kartaa zaytuunkaad isticmaali kartaa insha allah intoo dhan waad isticmaali kartaa marka insha allah waxaan rabaa sidii aan u samaysan lahaa inaan insha allah idigu soo dhaweeyo insha allah inna waan isticmaalayaa oo sidii aan u isticmaalayaan tusaya inna waxa waan dhigayaa insha allah oo isagoo engeegaas dareygaas ayaan ku cunayaa insha allah si insha allah caloosha inoogu dhaqaaqdo dad baa jira calooshooda aad u adag tahay insha allah ha isticmaalaan aad buu wanaagsan insha allah tiinka iyo zaytuunkaasi insha allah tiinkii waan googooyey waan yaryareeyey waxaan rabaa insha allah inaan caag ku shubto caaga markaan ku shubo waad arkaysiin insha allah sidaan u sameynayo insha allah asxaabay wakaasi insha allah tiinkii caagaasaan ku shubtay waxa aan ku dari doonaa insha allah zaytuunka ayaan ku dhex darsanayaa insha allah wakaasi wakaa zaytuunkii iyo waxaan isku daraynaa tiinkii baan isku dhex daraynaa maxaan kaloo sameynaynaa insha allah waa kuwaasi tiinkii iyo zaytuunkii saasaa la iskugu darsanayaa waad qabanaysaa daboolkiisiina waa kan insha allah waad daboolanaysaa waxaan ku darsanaynaa olive oil ayaan ku darsanaynaa insha allah dhulkaa 5 malqaacadood ayaan ku darsanaynaa insha allah shan malqaacadood ayaan ku darayaa malqaacada weyn insha allah inuu qooyo ayaan rabaa asxaabi wakaasi ilaa 6 xabadood ilaa 7 xabadood baan ku darsaday 7 malqaacadood ayaan ku darsaday insha allah maasha allah waa ka uu qoyay waxa weeyaan zaytuunkii iyo
iyo tiinkii weeyaan maasha allah calooshay jilcinayaan halkaasaan ku haynayaa insha allah waxaad cunaysaa 3 cisho ka bacdi isla markaaba caloosha dhici karta inay kugu xanuunto asxaabay wakaasi insha allah saliidii baan ku shubay ilaa 7 malqaacadood aan ku shubay malqaacadii waad arkayseen insha allah waan daboolayaa daboolkiisi waa kan insha allah wakaasi insha allah saasaan u daboolayaa meel baan dhigayaa waxa weeyaan kabarkaad ka gashan kartaa talaagadaas ka gashan kartaa laakiin waxa weeyaan ma cunaysid isla markaaba ha cunin 3 cisho ka bacdi amba 2 cisho ka bacdi isticmaal haddii kale caloosha kugu xanuuni karta insha allah marka waxaa idiga codsanaya insha allah inaad ka faa'iidaysateen waxay wakaasi sidaasaan qaadayaa waan dhigayaa markaasi meel baan dhigayaa waxa weeyaan 3 cisho ka bacdi ayaan isticmaali doonaa insha allah caloosha ayuu dhaqaajinayaa calooshana bisha Ramadaan horteed calooshaha laga shaqeeyo tiinka iyo zaytuunka lagu isticmaalo iyo jayseedka yogurtka lagu darsado blend yogurtku markuu cad yahay lagu darsado insha allah natural yogurt kale naturalka yogurtka aan waxba ku jirin khudrad kuma jirto waxba kuma jirto waa cadaan waa yogurt nadiifa marka bakteeriyada ayuu ka kaxaynaya yogurtku noocoo doono ha noqdo laakiin inuuna waxba ku jirin oo waxa weeyaan uu iska saafi ahaadaa insha allah yogurtka sidaa iskaga saafiga insha allah markuu saafi yahay ayaad ku darsan kartaa waad ku dul cuni kartaa waxaad ku dul cuni kartaa jayseedka caloosha ku dhaqaajinaya yogurtkuna bakteeriyada caloosha ayuu dilayaa wixii ku jira marka insha allah laga faa'iideysto waxaan kale oo idin sheegay timeka amba zactarku wuxuu faa'iido u leeyahay caloosha haddii maad aragtay subag uu istaago wuu kilin garaynayaa oo waxa weeyaan subag ayuu ka kaxaynayaa wiigii maalin haddii la cabo haddii aad calooshaad u weyn tahayna insha allah maalin kasta iska cabi kartaa calooshu yaraynayaa taasi insha allah waxaan rajaynayaa in aad ka wada faa'iidaysan doontiin calooshu yaraynayaa waxa weeyaan bakteeriyada uu ka saaraya waxa kale uu ka saaraya subagga fadhiya ayuu ka kilin garaynayaa marka qofka hadduu aad u dhuuban yahay wiigii mar ha iska cabo laakiin hadduu qofka calooshiisa aad u weyn tahay ha iska cabo maalin walba iska cabi karaa waqtiga afturka oo kale iska cabi karaa afturka ka bacdi insha allah subagga ayuu ka kaxaynayaa macajirku ka kaxaynayaa subagga ayuu ka kilin garaynayaa caloosha waxa weeyaan haddii ay madaragta caloosha ku adag tahay uu subaguna kaa hor joogsado saxarada kaa hor joogsado waxa weeyaan ma imanayso saxaradii ma imanayso marka insha allah hala isticmaalo kan zaytuunka hala isticmaalo hala isticmaalaan dadku tiinka zaytuunka iyo jayseedka dhammaan intaaba markaa isticmaashid bisha Ramadaan insha allah amba horteed baad isticmaashid caafimaad ayaan ilaahay kaaga rajaynayaa waxa laga socday waa caloosha weeyaan sidoo rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxa weeyaan dadka bini aadanka waxa weeyaan gurigu waa caloosha haddayna ku socon amba caloosha haddayna ku xanuunayso xanuun kasta wuxuu ka bilaabmaa caloosha ayuu ka bilaabmaa ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan caloosha in la dhaqaaleeyo oo la ogaado oo lala socdo oo waxa weeyaan saxarada ma aragtay haddii kugu xumaato dhibaatooyin badan baa imanaysa insha allah inaa lala shaqeeyo caloosha weeyaan sidii aad u kelin garin lahayd waxa la cunaya lala socdo cuntooyinka faa'iidada u leh lala socdo marka qofka bini'aadankii waxa weeyaan waa guriga qofka weeyaan calooshu marka haddii calooshaadu beydka weeyaan haddii calooshaadu xumaato xanuuno badan ayaad yeelanaysaa marka insha allah caloosha aan ilaalino caloosheena caafimaadkaygaan ilaalino mindhaqiraha caafimaadkoogaan ilaalino insha allah haddii ilaahay dhado bakteeriyada yogurtka dilayaan koori iyo jayseedka isku cun insha allah khudrada waad ku darsan kartaa zaytuunka iyo tiinkana maasha allah caloosha ku dhaqaajinayaan marka insha allah hala isticmaalo tiimka amba zactarkuna waxa weeyaan subag ayuu ka saarayaa caloosha mindhaqiraha istaagaya ee joogsanaya marka insha allah intuu faa'iido leedahay aad baan idin salaamaya hayga iloobina subscribe-ka waa walaashiin hayga iloobina subscribe-ka like iyo u share gareey walaalihiina kale كومنت قروح بدن إن شاء الله آد بنوقف فرحسنا كومنت دينا ما شاء الله آد بنوقف فرحسنا جزاكم الله دمانتين آد باد وذا مهد سنتين ونوقف فرحسنا كومنت دينا دمانتين
waxaan rabaa kale dadka cusub oo kale insha allah subscribe-ka haddii dadku iga cusub yihiin subscribe-ka i saara, like-ga iyo comment qurux badanba insha allah u sheer gareeyana walaalihiina kale ee u baahan amba ajar ayaad ka helaysaa walaalka aad u sheer garaysid oo calooshu adag tahay. waxa weeyaan xanuunada waxay ka bilaabaan caloosha, haddaad walaalkaaga kale u sheergaraysid ajar baad ka helaysaa insha allah. walaalahaaga kalena u sheergare sida uga faa'iidaystaan. aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin, aad baan idiin salaamayaa insha allah. subscribe-ka iga iloobina, waxaan rabaa inaad caawisiin oon garowgareeyo insha allah. aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.